codkii naas ma noqon doono cod luuma ee wuxuu noqon doonaa cod baahiyihiina mitala codkaagu muwaadin codkaagu waa mustaqbalkaaga maanta aan si wada jir ah u bilowno safarka isbedelka ee gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa bahda warbaahinta Shaahi TV iyo wariyaha Daahir iyo kamera maagiisa waxaan ku socodsiinayaa fariintaydan maanta kuna warbaahineed shacabka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelfuy fariintaydan waxay oranaysaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa maanta farxad iyo qadarin iyo mas'uuliyad iyo ah inaan maanta si rasmi ah u shaaciyo go'aankayga murashaxnimo inaan isu taago xildhibaan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka sharaxan gobolka qiimaha leh ee Sanaag go'aankayga ma aha mid sahlan balse waa mid ka soo maaxday dareenkayga mas'uuliyadeed rabitaankayga horumarinta gobolka iyo aragtida fog ee aanu hayo mustaqbalka gobolkeena iyo guud ahaan qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland sababaha aan soo sharaxay waxaan doonayaa reer Sanaagow gaar ahaan reer Ceelfuy maanta inaan idin sheego kow inaan codkiina cod u noqdo inaan matalo danihiina xoojiyo rabitaankiina oo aan u doodo xuquuqdiina inaan ka shaqeeyo xal u helidda caqabadaha taagan sida shaqo la'aanta dhalinyarada horumarinta adeegyada aasaasiga ah iyo xoojinta nabadda iyo midnimada bulshada deegaanada Ceelfuy ee colaaduhu saameeyeen in badan waxaan maanta xambaarsanahay himilooyin fog oo ay maanta mudan tahay in waqtigeedii taagan tahay oo aan doonayo inaan ka dhabeeyo haddii codsigayga aad tixgelisaan codkan ay siisaan himilooyinka waxa weeye aan maanta xambaarsanahay waxa ka mid ah horumarinta waxbarasho la helo oo tayo leh kor u qaadida fursadaha waxbarasho ee dhalinyarada caruurta gaar ahaan tuulooyinka fogfog oo aad ogtihiin dadkeena tuulooyinka fogfog ku nool ee meelaha miyiga ku nool inaan waxbarashadu aad u gaadhin inta karaankayga waxaan ku dadaali doonaa inaan dugsiyo farsamo gacan ah kuwa boodhina inaan xirfad iyo xeelad iyo xilkaad noo dhiibtanba ku keeno waxaan doonayaa inaan xoojiyo xoojinta shaqo abuurka dhalinyarada saa ka warqabtaan gobolku gaar ahaan degmada Ceelfuy waxay ahaan jirtay muddooyinkii hore foolaadka gobolka xagga waxbarashada iyo xagga shaqadaba sida aan ka warqabno muddooyinkii dambe colaada afeeyay sidaa darteed walaalayaal waxaan abuuri doonaa oo la shaqayn doonaa hay'adaha iyo ganacsatada kuwaasoo abuura fursado shaqo waxaanu keeni doonaa insha Allah oo ku dadaali doonaa inaanu keeno gobolka waxa weeye maalgelin ku sameeyno fursado ganacsatada waxa weeye kuwa dalka iyo kuwa dibadda iyo kuwa waxa weeye caalamkaba aanu gobolka waxa weeye ugu yeedhno gobolka gobol balaaran khayraad balaaran leh oo ay xoolaha ka mid yihiin kalluunka ka mid yahay beeyadii ka mid tahay dahabka ka mid yahay iyo macdantii kaleba oo shidaal ku jiro waxaan ku dadaali doonaa inaan sameeyo xeerar aan soo jeedino aan sixino xeerar ka hadlaya waxa weeye horumarinta gobolka waxyaabaha asaasiga ah iyo maalgelinta gobolka si gobolka loogu dhiirido sidoo kale gobolka waxaan ka dabaalan doonaa colaadaha soo noqnoqday aan mustaqbalka gobolka u ahayn kuwaas oo adeegayn waxa weeye danta mustaqbal fog danta dhalinyarada iyo danaheena oo dhanba ta qaranka iyo guud ahaan deegaanada walaalayaal waxa weeye waxaan noqon doonaa xildhibaan lala xisaabtamo oo dadkiisa ka dhex bixin waxaan noqon doonaa xildhibaan waxa weeye saaxiib dhow idin la noqda waxaan noqon doonaa xildhibaan idinka codkiina cod u noqda oo baahiyihiina iyo waxyaabaha u baahantiin intii karaankiisa ah intii karaankayga ah aan ka qabto walaalayaal
ما نقول دونه عد كناس ما نقول دونه عد لوما أو نقول دونه عد باهيهنا مثلا سدب أهو مثلا سح أقول له مثلا سير هذا النمل مثلا سكوتا هو يو كودا يو هو يدود بله مسرحية سياسة السومالية نقول مثلا نقول دونه إن شاء الله وقدام بنتي qof kasta wuxuu leeyahay doorkiisa waxaan aaminsanahay in matalaad dhab ah ay noqon karto mid bedesha nolosha shacabka waxaan iska codsanayaa walaalayaal inaan codkiina ii hibaysaan codkaasi ma noqon doono san hore baan idinku sheegay mid idin kalnuma balse wuxuu noqon doonaa mid wax bedela waan idin furfurnaan doonaa waan idin dhegeysan doonaa waan idin adeegi doonaa saaxiib dhow ayaan idinla noqon doonaa codkaagu muwaadin codkaagu waa mustaqbalkaaga maanta aan si wada jir ah u bilowno safarka isbedelka ee gobolka aad baad mahadsantihiin waan salaamayaa magacayguna waa Salebaan Xuseen Maxamed naanaysteeduna waa wado Salebaan wado aad baad salaamayaa waan mahadsantihiin